hore ayaan idinku sheegay in ninka lagu magacaabo Ashraf Cali oo kamid ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku noolaa Muqdisho sanadihii ugu dambeeyay in looga shakiyay inuu ka tirsan yahay kooxaha qoomuludiinta waa kooxo markaasi sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanayay magaalada Muqdisho. haddaba warkii hore war soo dhaaf ninkii markii lagu tuumay inuu kooxdani ka tirsan yahay wuxuu qariyay sida halkan idinka muuqataba oo TikTok-tiisii guud ahaan private ayuu ka dhigay. haddaba tuumanayaal badan oo dhalinyaro ah oo lagu tuumi jiray inay kooxdan ka tirsan yihiin ama lacag lagu siiyo inay dhaqanka dooriyaan oo maadaama dad Soomaaliyeed oo muslimiin yihiin in dhalinyarada ugu faraha badan ee Soomaalida ragga ah ee ku sugan magaalada Muqdisho in dhaqamada foosho xun leh in dhiiri galiyaan lacag markaas aad u fara badan lagu siiyo. waxaana kamid ah Ashraf sida warar hoose oo aan helnay oo warka ugu dambeeya kama dameysta ah ay cadeeyeen in ninkani uu qandaraas weyn ka qaatay kooxaha markaasi qoomuluudka ah. haddaba waxaan daawadsiinayaa wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo kale isaguna kooxan qoomuludiinta ka tirsan ayaa waxa uu live-ka la soo galay mid markaasi halkan idinka muuqda ninkan oo Farxaan lagu magacaabo waxa uu ka codsaday inuu isaga oo hada waa nin weey inuu isaga u baahan yahay amal meel kale uu ka aadana amal uusan jirin wuxuuna ula hadlayaa sidii inuu yahay isagu gabadh iska dhigayo isaguna uu nin yahay oo raba uu raba amal waa sida ninkan uu sheegay muuqaalkan aan daawadsiyo marka hore. intee aada abuu hada ka tago yaa ugu haleynaa يا إيجا تكتي مركا إيجا تكتي مدر هربري هرتم كل جوجا لا فيري الشهادة بورت الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنا حبيتك شكلك حلو وفنك حلو كلك على بعضك اللي قدمتينا والله صوتك كبير. daawadayaasha qaaliga sidoo kalena aan idin tuso macallinkii xalliya oo isaguna ku tufay markaasi Ashrafka khaniiska ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. khaniis miya mise khaniis maaha kaliya culture-ka iyo dhaqanka daazid waa la soconaa talabaadna daniga wuxuu samaynayaa uu sheer gareynayaa niman kaloo qaniisiina contentigooda so at the end of the day it is what it is and that's what's up like haddaa u malaynaysid dee ilaa hadda hadduu shaki kaaga jiro anigu ma garanayo qofku waa inuu isdhiso haye meeqaad u baahan tahay inaad aroostid 10 years aniga soo socota ma qorsheynaya inaan gursado waayo makeupka foundationkii la marwaya aniga hadda 10 sano kadib makeupka oo ka qalin jabina afaara kala bilaaba hadda foundation la marwaya idinka ma waxa u malaysaan daaga inuu skin care isticmaalo daa motherfucker makeup baa u marsan foundation baa u marsan laakiin Soomaalida waa in farta waaweyn wax loogu qoro that guy wajigiisa foundation baa u marsan khadijooyinka qaar sida uma marsan karaan foundationka iyo makeupka wuxuu ku leeyahay wajigayga lacag galiya war waa makeup ninka makeup uu soo baxay xataa podcastiga markuu joogay makeup waaye okay waxaad u malaysaa adigu inay tahay waxaad u malaysaa inay tahay skin care-ka lagu sheegayo waa inaad wajigaaga dhaqdid ama habeenkii aad wax wajigaaga nadiifinaya aad ku seexatid that's it. skin care-ka maaha wax banaanka loogu baxo dadka qaar baa skin care waxay ka fahmeen skin care-ka waa daawooyin la isku cadeeyo no xariifkan makeup baa u marsan mujada ciwaankiina bareefada uu geliyay wuu cabsaday hadduu wax isku ogeyn toos oo shaashadaha usoo fariisan lahaa oo u sheegi lahaa ciwaankii bareefad dalaq cabsi waa kay cabsi heerkaasa ciwaankii hataa bareefada ugu xirteen waa aruuriseen ninkii waa erideen eriya ninka naqaska ku dhajiseen amina naqaska ku dhagan wax oo sheega male macal ciwaankiisa bareefada u gashta hadduu run sheegayo ma idaacadaha soo fariisto oo si xaya oo hadlo sheego dhaho war aniga waxaas ligu sheegay ama ligu tuhmay wax jira ma maxuu u carara fakatax big maxuu u yiri jis aka dhigteen jis wallahi billahi taala idinka gacana idin taagay waa idinka cabsaday dad inaba caadi ah ma tihiin waxaad u kuur gashaan waa soo qabataan
marka adeega uu 2500 dollar waraa dad America jooga hataa ma ahan Europe America jooga qaarkood bishii kuma shaqeeyaan 2500 dollar ciyaara uma laysa America kuma qeeyay soo lagu ma leh dad qaar aan bishii 2500 ku shaqeyn Europe sidoo kale wallahi billah qof Soomaali ku dhashay ku barbaaray ku koray jooga oo wax ku bartay ayaa idahay miya 2500 dollar aan adeeg bis u aada dukaan waa soo adeegta هاو مشروع واي dhalinyarada simkaaradooda lagu dheeli rabaa instead simkaar inay soo qoraan al rabaa mashruuc dhalinyarada lagu baabi'inayo waa dhalinyarada garbaha iska haysata da aragtid mashruucaas waay waxaas wax loo dul qaadan kara ma war hooy naga jooga ma ogolin waxaas iyo hanoo keenina wadanka daada qaado daad haye daad roob waa daa haduu dhaho daad doon in lagu socdo maana mala lagoyn karaa hata haye idinka waa waxaas hana waalina naga dhaafa wadanka uma rabno qararacdiina naga joojiya naga leexda aragiina na dhibaayo horaa loo yiri nin noolo maxaa aragtay ku laaban haddii aad markaasi muddo sii joogto adduunka wax badan ayaad arki doontaa dadka reer xamarka ayaa waxay yiraahdaan cimrigaaga oo raaga geel dhalooyana waa ku tusaa marka saaxiibayaal wax badan ayaa idin harsan oo adduunkan saaxiibada qaaliga waad ku mahadsantiin haddaad soo gaadhay dhammaadka muuqaalka si aad u hesho dhammaan dhacdooyinka xiisaha leh fadlan youtube-keena Hogol News subscribe noo saar muuqaalkana like ha ka ilaawn fikirkaagana commentiga hoose nagula wadaag Hogol News baahiyaha bulshada